kulanka baarlamaanka Jubbaland oo ah kalfadhigii afraad fadhigiisa 59 ayna ka soo qayb galeen 40 xildhibaan ayaa ahaa mid inta badan looga hadlayay dhibaatooyin isugu jiray dilal dhaawac kufsi iyo burburin hantiyeed oo loo geystay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland ayna geysteen sida la sheegay ciidamada Kenya ee qaybta ka ah ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada Jubbaland iyadoona warbixintaasi ka hadlayso dhibaatooyinka ay geysteen ciidamada Kenya oo baarlamaanka Jubbaland ka hor akhriyay gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland xildhibaan Dr. Shire Cabdi Maxamed oo si gaar ah uga hadlay duqeymihii lagu burburiyay qaar ka mid ah xarumihii shirkadda Hormuud iyo dhimashada ilaa iyo dhowr qof oo u geeriyooday duqeymaha ciidamada Kenya ay ka geysteen deegaanadaasi iyadoona sidoo kale uu ka hadlay ilaa iyo 5 haweena oo kufsi loogu geystay deegaano hoos yimaada degmada Balad Xaawa ee gobolka Gado hayeeshee gabagabada kulanka ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga habdhowrka baarlamaanka Jubbaland Bashiir Maxamed Baahala waxaana uu sheegay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu fariistay kalfadhigiisii afraad fadhigiisii 59 قرنك مانتا سو حاضرينا wuxuu ahaa 40 xildhibaan ajandii maanta laga hadlayay baarlamaanka maanta oo ah maalin isniina wuxuu ahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa dadkii ku geeriyooday ama ku xilloobay iyo hantidii ku burburtay burburin loo geystay taawaro ee lahayd shirkadda Hormuud taawradaas oo ku yaalay meelo ka mid ah deegaanada Jubbaland baarlamaanku qodobka labaad wuxuu ahaa qodob isagu aanu dib u dhiganay oo hadii la yiraahdo barito doodiisa la gelinayo oo ah warbixin laga dhageysan doono guddiyo loo xil saaray khilaafaadkii maalmo dhaweyd ka dhacay duleedka Kismaayo oo dhexmaray 2 beelood oo deegaana baarlamaanku waxa uu maanta aad u hadlay arinta ku saabsanayd arintii Hormuud runtii baarlamaanku waxa isagoo ka tiiraanaysan oo tacsiya ama uu ka tacsiyay dadkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ku geeriyooday ama ku waxyeeloway ama waxyeeladu ka soo gaartay burburintii taawarada Hormuud haleenahay ilaahay ha u naxariisto dadkaas runtii waa wax laga xumaaday noqotay xildhibaanadii meesha joogayna runtii maanta arintaas way ka muujiyeen mataqaanaa qodobka labaad ee ahayd in laga doodo maanta wuxuu ahaa warbixintii guddiyada loo xil saaray khilaafkii 2 beelood ku dhexmaray dowladda Kismaayo arinta iyada mataqaanaa baritaan dowladda dib u dhiganay inkastoo ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanada Jubbaland dhowr jeer oo hore loo soo jeediyay eedeymo ku aadanaa dhibaatooyin ay ka geysteen deegaanada Jubbaland ayaa haddana dhacdadaani ay ka hadleen baarlamaanka Jubbaland aysan jirin jawaab ay ka bixiyeen ciidamada Kenya ee lagu eedeeyay dhacdadaasi Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo